بسم الله الرحمن الرحيم. madaxweynayaashii hore dalka saaxiibaday walaalahay madaxweyne cali mahdi maxamed madaxweyne shariif sheekh axmed madaxweyne xasan sheekh maxamuud duubabka beesha mudulood ee goobta fadhiya kuwa maqan oo uu hogaaminaya imaam maxamed yuusuf cali imaam iyo xubnaha kale oo dhan wasiirada heer federaal kuwii hore iyo kuwa hadda xilalka hayaba madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane doctor maxamed cabdiwaare wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle iyo intii kale ay joogta gabdhaha sharafta leh ee beelweynta mudulood ee goobta fadhiya iyo inta daawanaysaba ganacsatada sharafta leh culamaa udiinka dhalinyarada barbaarta gaashaaman iyo suugaanta inta noo tirisay ama noo tiri doonta bahda saxaafadda ciidamada amniga saraakiisha qaranka iyo intaanan xusin magacooda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kama tegin guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada mudane maxamuud maxamed filish iyo guddoomiyaashii hore ee soo qabta xilka gobolka banaadir duqa magaalada oo u fadhiya halkeer mudane xaaji cali ugaas cabdulle salaan kadib ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa intii curisay abaabushay soo daadihisay shirkan wadatashiga beelweynta mudulood ee maanta furmay meel kastoy joogaan dibadda iyo dalka gudihiisaba waxay u sameeyeen beesha ay ka oobtirsadaan dhaxal taariikh dhali doona waxaan rajaynaynaa inay shirkan ka soo baxaan qodobo wax ka tara aayaha beesha iyo kuwa ummadda soomaaliyeedba waxaan filayaa beeshan taariikhdeeda waa la taataabtay cid la baranaya ma ahan gobonnimo doonkii laga soo bilaabo ilaa maanta baal dahaba ayay ugu jirtaa ummadda soomaaliyeed markhaatiyayna ka yihiin waxaa la xusay inay sababtu sidaas tahay inta soo hogaamisay xilalka qaranka laga soo bilaabo allah u naxariistay madaxweyne aadan cabdulla cismaan waa abaalmarin soomaaliyu ay abaalmarinaysay kuna tirinaysay inay yihiin dad qaadi kara mas-uuliyadda ummadda soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin hoos markaan u soo daadegno qarankii soomaaliyeed marka uu naga burburay oo dagaaladii sokeeye dhaceen oo soomaaliyu kala firxatay mudulood iyo walaalahood magaalada muqdisho gobolka banaadir waa anfici waayey keligood waxay arki waayeen qurux iyo sharaf iyo karaamo soomaaliyeed inta joogtay ee fadhida goobta oo hoggaanka haysa markaasoo ugu horreeya madaxweyne cali mahdi iyo garbihiisii iyo intii joogtayba beeshaani waa beesha jeebkeeda kharashka ka urursatay dayaaradaha kiraysatay gobollada soomaaliyeed mid mid uga degtay ee soo ururisay soomaalida kala farxata waagaas anigoo dhalinyar ayaan boorso iyo makiinad u waday ayaan u garaacayay dokumentiga heshiiska lagu gelayay sharafkaas ayay ku mutaysata beeshu in xilalka soomaaliyeed la siiyo hadallada halka ka yeeray oo macnaha leh waxaan ka soo qaadanayaa tiro iyo tayo dadkeenna meel kastoy joogaan waxaa la yidhaahdaa qowm yar oo abaabulan wuxuu ka awood badan yahay kana waxqabsi badan yahay qowm tiro badan oo kala daadsan oon abaabulnayn maxaa ka iman kara marka qowmka magacaas leh ee taariikhda soomaaliyeed ku jira oo abaabulan macnaha ku jira Soomaaliya ay noqon karto dawlad awood badan oo soo ceshata magac iyo karaamada ay ku leedahay qaaradda Afrika iyo caalamka
hadday nagu filan tahay beelnimo mudane cali mahdi iyo maamulkiisii dayaarada inta kirayno Soomaali ma raadinin waxaan u raadinaynay inaan aasaas iyo saldhig u nahay qarannimada Soomaaliyeed beelaha Soomaaliyeedna magac iyo maamuusan ku dhexleenahay wayna hayaan mahadaas intooda aan caasigan ahayn sidaas darteed waxaan uga jeedaa hadalkaas oo dhan dawladda maanta jirta meesha ay ka timid iyo siday ku timid waa ka dhergantihiin maskax ayaa gashay dhiig wiilal ayaa galay iyo gabdho xoolo ayaa galay in Soomaaliya dib u hanato dawladnimo saldhig ayayna u tahay beesha Mudullood sidaas darteed wax alla waxaan haminayno oo qurux iyo sharaf ah oo Soomaalinimo ah yaan la iloobin inay ku salaysan yihiin dawladnimo haddayna dawladnimo jira quruxdan iyo sharafkaanba ma fariisaneen maantaan aaminsanahay markaa dawladnimada in lagu dadaalo waa waajibna wada saaran Soomaali kastana saaran waxaan taageerayaa oo aan hoosta ka xariiqayaa midnimada beeshan inay wax weyn u doonto dadka qowmiyadda iyo qaranka Soomaaliyeedba waxaan taageerayaa dawladda Soomaaliyeed ee maanta jirta ee maanta halka fariinta looga dirayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu saxiixo qaraarka 13 xubnood lagu siiyay aqalka sare gobolka Banaadir waxaan filayaa waxay ku timiday shaqo waxay ku timiday halgan waxay ku timiday maskax waxay ku timiday hogaamin sidaas daraadeed hay'adihii qaranka ee golaha shacabka ee aqalka sare iyo madaxweynahaba waa uga mahad celinaynaa waana uga fadhinaa inay dhameystiraan sida la soo jeediyay waxaa noo dhiman maqaamkii Muqdisho ee caasimadda Soomaaliyeed waxaa noo dhiman oo laga dhawaajinaya ajandaha in dawlad goboleed Banaadir la dhiso oo ay hoggaan u tahay beeshan dawlad goboleedyada dhismahooda waxa weeye arag ku ahaa hogaamiyana ku ahaa mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu og yahay kulligeena ognahay in dadka deegaanadu dhisteen dawladuna fududayso cidda laga rabo inay dhisto oo hor kacdo waa bulshada gobolka Banaadir oo kala harin oo qoyskan ama beeshan hoggaanka u tahay ama gogosho u tahay dawladda heerarkeeda kala duwan waxa uga aadanna waajib ay ku tahay inay dowrkeeda cayaarto hadday ay rabto inay sharaf iyo magac ku raagto ama isku bedesho waa aaminsanahay inay naga buuxaan musharaxiin u tartamaysa xilalka qaranka mustaqbalka iyo haddaba laakiin ningeedu buuxaya gari u go'daayay Soomaalidu tiraade haddayna Mudullood quruxdan dibadda ee gudaha ku lahayn waxa xilalka faraha badan ee maanta la tiriye la siiyama ah shakhsiyaadka aan nahay ee waa magaca beeshan sidaas darteed Soomaaliya xoog iyo qoray waa ka soo daashay waxa maanta lagu tartamayaa siyaasad iyo sharci waxaana xero u ah dastuurka kumeel gaarka ah ee qaranka Soomaaliyeed sidaas darteed haddii mandaydka dawladdaani dhamaatay xildhibaanadu iyo annaga afguubaadsi noo akhrin iyagu inta baarlamaanka tagaan ha yiraahdaan hana la kala diro ee doorasho la aado waxaan aaminsanahay doorasho inay dhacdo inay waqtigeeda ku dhacdo inay si nabada ku dhacdo inaan khasab iyo lagu wadin sharci jebin iyo dastuurka tegid laakiin waxaan iyadana hoosta ka xariiqayaa in isbeddelku ku yimaado sidoo ku imaan jiro waad ogtihiin kuma imaan karo si ka duwan kuma imaan karo aniga raba xildhibaan ducaale wuxuu yiri 4 sano aan iska sii joogo anigu buu raba laakiin waa in shacbigu siiyo ee ma aha inuu asugu xoog nagu haysto aad iyo aad aan ugu hambalyeynaya hadalkaas inuu ka soo yeero wakiilada noogu jira golayaasha qaranka mudane aliya marwooyin wax badan ayaa naga buuxa laakiin duhurkiina waa la joogaa
waana la iga dambeeyaa laakiin waxaan ku soo khatimayaa hal shay hadalka madaxweyne Waare waana wada saameeyay waxaan rabaa marka inaan la sacbin oo la farxin oo la qoslin ilaa laga xoreeyo deegaanada beeshaan leedahay iyo kuwa Soomaalida kalaba iskuul male isbitaal male jidad fiican male ceelal male inaan marka tiro iyo tayo iyo xoog iyo xoolo iyo aqoon sheegano waxba tari mayso waxaa la rabaa inaan ku mintidno inaan gacan ka geysano hogaaminana in deegaanadeena laga xoreeyo cadowga haysta oo xaqdarada ku haysta oo baabiinay dadkeen ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mu'assasada Macallin Nuur iyo hogaamiyaheeda Khaliif Cabdulqaadir Macallin Nuur iyo intii garbihiisa ku aheeday gogoshan quruxda badan noo dhigtay ummadaan isu keentay muddo dheerna dib u heshiisiin ka soo dhex waday aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa uguna hambalyeynaa waxaan rajaynaynaa in Ilaahay uu guul iyo sharaf ka siiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.